tala naga siisaa oo aad la talisaa dhalinyarada ku saamowday dhaqanka reer galbeedka ee timaha sida khaldan u xiirta ama dhinacyada xiira tala si ay wax weeyaan kuwaana qaadanayaan tala waxay ku kooban tahay inaynu ilaahay ka cabsano subxaanahu wa tacaala gaaladu maanta dunida joogta ee reer galbeedku hogaamiyo waxay ku fiican yihiinna waa jiraan way dunida dee ku hogaamiyaan ilaa cidi hadiyad uma siinin hoggaanka dunida ee waa waxay shaqaysteen waxay ku liitaanna way jiraan innaga dhibtu waxay naga haysataa wixii ay ku fiicnaayeen kaga dayan mayne wixii ay ku liiteen baynu kaga dayanaynaa waxay ku fiicnaayeen dunida ku maamulaan waa aqoon iyo cilmi baadhis iyo sabir iyo xilmi iyo wixii la mid ah taas baa sababtay inay dunida hogaamiyaan bacda allahi subxaanahu wa tacaala taas baana diintu inoo sheegtay meeshaynu ka hellaba inaynu qaadanno oo tajaaribtii aadanaha ah waxay ku liitaan aan waxba sheegaynin oo ah professor dhan oo aan nijaasta iska maydhi karin markaad aragto ama waxaan aadamaha u suubanin samaynaya waad ka naxaysaa xaggan kale markuu dhigayana aad arkayso khabiir laga dambeeyo inuu yihi haddaba walaalaha muslimiinta dhammaantood waxaan leeyahay wargaalka waxaad kaga dayataa wuxuu ku dheer yahay ee diine wuxuu ku dheer yahay ee cilmiga kaga dayo adiguna waxay ahayd inaad aadanaha u soo bandhigtid waxaad dheertay dhaqan iyo diin iyo akhlaaqaad rabbiga kala kulantay haddaba gadinina arrinka waa wixii cilmi iyo ku dayasho u baahnaana kaga dayan mayno wixii aan ku dayashada u baahnayna waynu kaga dabagadis saas marka waxaan leeyahay walaal kastoo muslima nimanka haddaad rabto inaad wax kaga dayato cilmiga iyo aqoonta kaga dayo laakiin tibadhan laga xiiray iyaguna kumay horumarin mara la gaagaabsada ama la daldalooliyana kuma horumarin kuwada horumariyeyna maaha kuwa waxaa ka shaqeeya xataa kuwada horumariya waxaan ka dambeeya qolada idinku daawataan inta badan waxay u badan yihiin kuwa la yidhi dadka madadaaliyo dhaqanka ka bedela kan heesa iyo kan boodbooda iyo kan kubadda ciyaariyo waa kooxda entertainmentka ka shaqeeya bini aadamka inay madadaaliyaan oo mashquuliyaan yaan lagu mashquulinine meesha wax jiraan qabo wallahu a'lam